soomaalida oo dhalinta yar leh waxaa ka buuxa saad ka warqabtiin dhib badan aynu soo maray yaa laga sheekayn karaya sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karaya rajooyin badan oo wax badan aan wakhtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin qaluubtayada ayadoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay soomaali baan nahay maanta waxay nahay xor talada iyadana gacantanada inoogu jirtaa wakhtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adinka gacantiinna ku jirta ad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad iyaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badanu ay nagala joogto maraka ka ahaado rabiddayada aad aynu u doonayno aan u rabno inaynu jecel nahay shucuubka adduunka inaan wanaag xiriir wanaagsan inaynu la lahaan Mr. Prime Minister, separated as we are by geography and history, we also find a sense of kinship to your government, which in its separation of powers between the executive and the legislature and the judiciary bear a resemblance to the balance of powers which we have felt in this country best ensures the liberty of the individual. We are particularly heartened to have you visit us. Prime Minister, you're welcome. Mr. President, I have great pleasure to convey to you and to the people of the United States the warmest greetings from the President of my country, from the government and the people of the Somali Republic. I'm looking forward to our meeting, which I'm sure will contribute on the creation of good relations between our two countries. Thank you. That day, the Prime Minister and President Kennedy had their first meeting in the White House to discuss world issues and Somali social and economic development. At the Shoreham Hotel, the Somali ambassador to the United States, Omar Moalim, gives a reception for Prime Minister Abdirashid. He welcomes G. Menon Williams, Assistant Secretary of State for African Affairs. He greets some Somali students studying in America. On his second day,
bisogna tendere, quindi deve essere inteso per l'uso e l'interesse della massa africana, non gruppo di individui creati, non so, dai politicanti europei, tanto per mantenere delle basi speciali di un ordine speciale che non è abbocciato sulla massa, sulla credenza della massa o sulla voce della massa, ma è abbocciato soltanto per un interesse. Microfonka hadalka oo ah mid aan la mid ahayn goobaha laga hadlo goob ka duwan goob guuleed goob difaac goob dulmidiid goob geesiyaal ku urursan yihiin gabdho iyo wiilalba odayaal rag iyo dumarba goob adduunkoo dhan aqoonsan yahay inuu galabta kelmad ka jeediyo ayaan ku soo dhawow mudane madaxweyne. waxaad moodaa maanta inay tahay maalin taariikheed, maalin ka duwan maalmihii kulameed, maalin aan la qadari karin qiimaha ay ummadda tan ugu fadhido. waa maalin xaqiiqadii aan loo heli karin eray lagu cabbiro, waayo qiimaha qofka la qiimeeyo hadba waa darajo. waxaad moodaa bermuuda qiimo adduunyo wax lagu qiimeeyo ee maanta la dhihi karo qiimahoodu waa intaa inayna afkayga ka imaan karin. waxaan ka aaminsanahay cid kasta ee nabaddoona, cid kasta ee sharafdoona, cid kasta ee wanaagdoona waxay marag ka tahay in badbaadinta la badbaadiyey ummadda tan tiirbireedkii badbaadiyey inay yihiin bermuuda ayaan cidna ayna inkiri karin. kuwa kooban weeye kuwa wax dhex mareen. waxaan laga hadlayaa sidii ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada dhex taal kana dhalatay dagaalkii sokeeye xal looga gaari lahaa, xal waara oo ummadda Soomaaliyeed maqsuud ka noqoto oo lagu gaaro nabad iyo dib u heshiisiin, laguna dhiso dawlad loo wada dhan yahay. waxaan qabaa shirkaani inuu natiijo wanaagsan ka gaari doono waxaan leeyahay kulanka kan hadda uu u fadhiyo. waxaan qabaa oo kale intaan shirweynaha la gaarin weyn in tallaabooyin la gaari doono xagga xabad joojinta iyo xagga nabadaynta ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada ay haystaan ururada ay dhex taalo dhibaatadu. mudane maxamed faarax aydiid waxaa la yidhaahdaa dhibaatada Soomaaliya intii taliskii hore uu gaarsiiyey inta imika iska hor imaadkiina adiga iyo Cali Mahdi aad gaarsiiseen baa ka weyne, maxaad oran lahayd? dhibaatada waa dhibaato ka timid dagaalkii sokeeye. waxaanan qabaa dhibaatada dhacday aniga iyo Cali Mahdi inaan gaarsiin waxaa gaarsiiyey taliskii hore ee dhiigyacabka Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayey. isagaana runtii dhibaatada faraha badan u geystay ummadda Soomaaliyeed. waxaan qabaa oo kale in dhibaatadaas ay sii kordhiyeen, horena uga qayb galeen intii Maxamed Siyaad dalka xukumayay ajnabi faragelin ku sameeyey arrimaha gudaha ee Soomaaliya. booqashadan Masar ku nimid waa booqasho shaqo
oo madaxda dalka kan aanu ku arkayno qaarna aragnay qaarna noo dhimayo aan arkayno wadciga jira ama caalamka carabta ka jira ama dalkayga gaar ahaan ka jirana aan iska warsanayno ilaa iyo hadda ma jiraan mudane mas-uuliyiin aad la kulantay maxayse ku saabsaneed arrimaha aad kala wada hadlaysay arrimahaan kala hadlayay sidaan sheegay arrimaha xaaladda dalkayaga ka taagan ayay ahayd way jiraan subaxda berriya qaar baan la kulmaynaa maalmaha soo socda oo dhowna waxaan la kulmi doonaa madaxda ugu sarraysa haddii ilaaha yidhaahdo dowladaha carabta waxaa lagu tiriyaa inaad ka mid tahay shakhsiyaadka saaxiibka la ah marka ma kala hadashay arrinta joogitaanka ciidamada etoobiya ee dalka soomaaliya dowladaha carabta ka mid baanu nahay mar haddaan carabta ka mid nahayna waxay ahayd inta hadda ay qabatay ka badan in la qabto gaar ahaan markii ciidamada etoobiya oo maraykanku dabada ka wada ay dalka soo galeen waxaan sugaynay in laga dhiidhiyo oo si weyn dowladaha carbeed uga dhiidhiyaan taasoo aan dhicin si hoose ciddii hadashayna ay u hadashay waxyaalaha aanu qolada tan iyo qolooyin kale intaba ka rabnaana waxaa weeye mowqifkooda in la muujiyo oo ah ciidamada etoobiya ee gardarrada ku yimid ee qaanuun darrada ku yimid ee ka soo axdigii qaramada midoobay iyo go-aankii qaramada midoobay iyadoo ka soo horjeeda la keenay dalka oo maraykanku keenay haddana baabi'iyey ummaddii soomaaliyeed oo xasuuqay oo malaayiintuna ay qaxootiga tahay 30,000 in gaaraysaana ay dhaawac tahay 7 ilaa 8,000 in gaaraysaana ay dhimatay dembigaas in lagu iyagana marka hore dalka laga saaro marka ku xigtana dadkii geystay oo ama ajnabi ahaa hadday etoobiyaan yihiin iyo hadday maraykan yihiin iyo hadday cid kale yihiinba iyo kuwii soomaalida ahaa ee dabadhilifka u ahaa intaba in lagu qaado dembigooda waxaan idinku adkaynayaa awalba idinkaa iskiin soo qabay oo gartay soo weerarnimo ogaada waxaan la yidhaahdo qabyaaladda meel ina geyn mayso weligiin qabiil qaran ah ma aragteen horta soomaaliya maaha soomaaliya haddayan qarannimo aaminin oo wadannimo aaminin oo nation ahaan aaminin waqtiga unbaa layna ka dhuminayaa waxaase ma jiraane soomaalinimadiinaa ku taagnaada midnimadiinaa ku taagnaada waxa waajib ku yahay oo soomaaliya xila oo kulligeen inaga saaran inaan kulligoon ku dadaalo xaaladeeduna waa sii adkaanaysaa waxaan rajaynayaa intaynu awoodeenna iyo maskaxdeenna iyo caqligeenna isu geyno soomaaliya inaynu qarannimadii iyo midnimadii iyo waxay ahaan jirtay ku soo celino nin kasta oo si kale waxay yidhaahdaa guulaysan mayaa ka badan maxaynu isu ceebeynaynaa runta waxay noqon doonto baynu ku taagnaanaynaa aniguna lamid baanahay anigu waxaa qabtaan baan qabaa waxaa qabtaan anna aan qabaana waxaa weeye waa soomaalinimo iyo qarannimo iyo midnimo iyo nabad iyo xasilooni ummaddani waa eegaysaa ninka madaxda ah ninkii hadduu hawshii sidii la rabay ay u qabsoomi weydo sababta ciddii doontaa ha yeelato haddee waxay ila tahay inuu meesha iska sii joogo iska fadhiyo anigu garan maayo xigmadda ku jirta runtii ma garan karo aada iyo aad oo u mahadsantiin waxaan si gaara ugu mahad celiyaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenada xubnaha baarlamaanka sharafta leh bulshada caalamka dowladda jabuuti ee suuro gelisay shirkan halkan ka dhacay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinkaga mahad celiyaa si gaara codkiina aad igu taageerteen iyo kalsoonidiina waxaan sidaas oo kale u mahad celiyaa saaxiibaday ama walaalahay
igala soo qayb galay tartanka oo runtii qiimaha uu leeyahay tartanka siiyey gaar ahaan walaalkii maslaxa ugu dambeeyay runtii natiijo aad u wanaagsan muujiyay waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowladda Djibouti oo siisay protocolka inay naga kaalmayso arrimaha nooca waa mahadsantiin madaxweyne ku soo dhawaaday بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحويني هوري جمهورية الفدرالية الصومالية مدير الشيخ شريف الشيخ أحمد قدوميها برلمان كصوماليا مدير محمد الشيخ عثمان جواري قدومية كحييننا رئيس الوزراء مدير بروفيسور عبد الولي محمد علي باس مدحوينها جمهورية جيبوتي مدير إسماعيل عمر جيلي رئيس الوزراء إثيوبيا مدير حين مريم رئيس الوزراء كحيين كدلك تركيا مدير تاو رئيس الوزراء كحيين كيوغندا موسى علي لطليها مدحوينها السودان مدير نافع علي نافع وزير الدولة ضلك خضر رمها الدمدة قدوميها أوركا مدولة أفريكا مرت شرفتك على أمانتي المركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته